Sportiga Tager. Sportiga Tager. Sportiga Tager. Sportiga Tager. Sportiga Tutita. 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 Sportiga Tager. Sportiga Tager. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو لواذا برنامج كفاقداد عيارها وهذا أنه كلا سعوتان تلفزيون كقرنك الصومالية برنامج كتضوات كانيني وحان كوي قدونا حرير كوباد عقيرها الصومالية صومالي ميني فوتبول فيدريشن oo sanadkii tagay 2015 dabayaaqadiisii laga hirgeliyay gudaha Soomaaliya xiriirka kubad cagiraha adduunkana uu halkaasi ka aqoonsaday hadaba gudoomiye xigeenka xiriirka kubad cagiraha Soomaaliya Abdi Maxamed Axmed Abdi Xaq ayaa barnaamijka inagu marti ah gudoomiye ku soo dhaw barnaamijka aad iyo aad ayuu mahadsantahay Zolo idaacadda iyo TV-ga qaranka Soomaaliya sida wanaagsan aad aga shaqeynaysaan sidii loo dardargelin lahaa sportiga wadanka gaar ahaan wixii qaabilsan arrimaha bulshada waana ku dhawahay aad iyo aad ayuu mahadsantahay waatahay gudoomiye ugu horeyntii waxa inooga sheekaysaa qaabka aad u soo sameyseen ama aad ku wajahdeen dadaalkan adag oo aad ku sameyseen xiriirka kubad cagiraha Soomaaliya ama Somali Mini Football Federation adduunkan oo idin ka aqoonsaday iyo sababta idin ku dhalisay in aad sameysaan barnaamij noocan ah run ahaantii aad iyo aad ayuu mahadsantahay oo su'aal loo baahan yahay inay dadka ogaadaan sida aad la socoto adduunka oo idil xiriir kubad cag iyo Olympic ma jiraan ilaa iyo dhowr iyo 30 xiriir ayaa jira Soomaaliya waa dawlad weyn waxaana ka jira xiriir kubadda cagta iyo Olimbikada Soomaaliyeed sida aad la socoto xiriirkan waa xiriir ku cusub adduunka waxaana la aasaasay 2013 oo lagu dhawaaqay laakiin hore uu u shaqeyn jiray markiisa horena uu ka bilaabmay wadanka Mexico Latin America kubaddan oo ahayd dadkii 12 markay isdhimaan inay ku ciyaaraan xaafadaha iyo santarada ay ku bilaabatay dhinacaas iyo Latin America muddo soo socotay way soo gudbeen waxay imaadeen warqado u direen xiriir kubadda cagta adduunka FIFA ee damceen in laga aqoonsado FIFA oo tiri dhaqaale idin ma hayno waayo FIFA sida aad la socotid saddex xiriir ayaa hoos yimaado xiriir kubadda cagta kan badda iyo Fosterka kana waa ka duwan yahay kadib wuxuu soo gaaray Yurubkii ayaa horumar u sii suubiyay garoomo u sii suubiyay ilaa iyo 15 sano ugu dambeysay adduunka waa laga ciyaarayay laakiin aqoonsi ahaan iyo tournament ay bilaabaan wuxuu bilaabmay 2013 ayuu bilaabmay Afrika ayuu soo gaaray Afrikana dawladda Soomaaliya waxay ka mid noqotay dawladdii labaad oo laga ictiraafo Afrikana laga ictiraafo maantana waxay marayaan ilaa 16 dal oo Afrikana waxaana ka shaqeeyay juhdiga run ahaantii rag aad iyo aad iskugu taxallujiyay waqtigooda qaaliga geliyay hadday noqon lahayd inay warqado diraan hadday noqon lahayd inay shaqo qabtaan hadday noqon lahayd in ay fikradaha la isku wadaago sida aad la socoto gudoomiye Cadaay iyo Xaaji Aadan General Secretary-ka ama xogayaha guud ee xiriirka Yaasiin iyo aniga intaa waxa laga wada shaqeynayay sidii loo soo gaarsiin lahaa Soomaaliya isla mar ahaantii fursad helnay wasaaradii ayaa loo gogol dhigay oo la tusay shaqadii in ay tahay wasaaradda isboortiga in ay tahay xiriir loo baahan yahay wadanka in la keeno waayo xiriirkan kubad cagiraha waa xiriir u baahan jiilka yaryar inay ku soo koraan
sida aad la socotana isla mar ahaantii xiriirka adduunka wuuna ictiraafay ictiraafkii kadib gudoomiyaha wuxuu ay isqaabileen maamulkii Africa Mr Ashraf Saalax bin Saalax ayaa wuxuu isku arkeen Paris asaga iyo legend weyn oo xubinna ka ah guddiga xiriirka guddiga fulintan ku jira Maxamed Ismaaciil oo ataqaan qaranka Soomaaliya u ciyaaray Maxamed Salim oo tababarihii hadda Shiinaha loo qaatay ah iyo Dr. Cadaay oo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta mini footballka ah isagii ayaa tageen Ashraf ayaa meesha ku qaabileen waana la soo dhaweeyay shaqadii aan ka qabanay Soomaaliya markii ugu horeysana waxa laga bilaabay ama xiriirka looga dhawaaqay Jubbaland magaalada madaxdeeda Kismaayo oo liigi ugu horeeyay oo Serie A ah oo laga bilaabo Soomaaliya oo mini footballka laga bilaabo Kismaayo juudi fara badan waxay ahayd bishii oo 12aad kadib maantadan la joogo waxaan maraynaa ilaa iyo 14 gobol oo Soomaaliya kamida inay mini footballka ay ka dhisan yihiin lagana shaqeynayo muddadii yareed oo 5 bilood aan gaarin waan gartay gudoomiye kubadda cagta waa ay fara badan tahay balse xiriirkani mini footballka federationka horey Soomaaliya ugu muusan jirin dadka Soomaaliyeedna waxa macquul ah in aysan aqoonin sharciyadiisa iyo qaababka kala duwan loo ciyaaro mini footballka adigoo u sharaxaya dhalinta Soomaaliyeed ee ka faa'iideysanaysa fursadan ay u soo bandhigteen oo aad u aas-aasteen qaab nooce ah ayaa loo ciyaaraa kubadda cagta markii aan eegno 11